haddaad been ku timid shalay burafool ku taaliyo bar madow inaad tahay maanta waa ku baranoo berrinaba degayside fahad boqor ha kaa dhigo waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxiim horta bahda saxaafadda Soomaaliyeed dhammaantood waa salaamayaa waxay og yihiin tiyaatarkan iyo xaaladda uu soo maray tiyaatarku wuxuu ku burburay dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay waxaad ogeydeen muddo asagoo qaawan haddii alla ku roon yahay waa beri inay dhex fadhiyeen waxaad og tihiin inaan ku dhex dhignay asagoo qaawan riwaayaddii dadweynuhu u bixiyeen adaa fiiqdee kor ha fiirin laakiin waa beri u ahayd beloy buugga allalaab marka tiyaatarka asagoo sidaasa ayaa ummadda Soomaaliyeed u gurmatay oo aan isxilqaan u alifnay oo haddii alla ku roon yahay dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda iyo xoogooda ay ku dhiseen markii ummadii ay dhisatay tiyaatarka dhismihiisa iyo xarumaha dhaqanka ee dhinacyada ka xiga sida maktabadda iyo madxafka dawladdu qarash kuma bixin ummadda Soomaaliyeed hantideeda gelisay dadka Soomaaliyeed xoogooda ku dhisay waxaad ogeydeen shaqaalaha wasaaradaha maalin walba wasaarada ku qoraa jirta wixii ummaddu ay dib u dhisatay oo ay badbaadsatay maanta in korkeena lagu gado la yiraahdo waa la kireeyay 20 sano la kireeyay la yiraahdo wax la aqbali karo ma dukumeentiga saxaafaddu waa haysataa waxa ku qoran gabadha shirkadda lagu sheegay oo laga kireeyay hadday dhimato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda ale hadday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas marka maanta haddii alla ku roon yahay dalkii Soomaaliyeed in la xaraasho oo xildhibaan lagu raadsho xil lagu raadiyo haddii alla ku roon lagu tartamo ayay maraysaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan leeyahay haddaad daawanaysiyo haddii aad difaacdaba dalka waa la gadaya saxaafadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed qof ka soo dabiir waxaan leeyahay haddii aad difaacdiyo haddaad daawanaysaba dalku maanta waa iib yaan sugaynaa yaan dhowranaynaa haddii wasiiradeennii iyo madaxdeennii ay gadayaan xarumihii dhaqanka miyaan la fili karin in mar dhow madaxtooyadana la kireeyo maxaa diidaya yaa oo doorasho iyo olol lagu jiraa madaxweynaha soo socda markii uu yimaado qola hor istaagtay tira meeshan anaga nala ka kireey soo sidii Cabdiqaasim lambar 4 guri ka kireeysamaayo markaas maxaa u diidaya marka madaxweynaha Soomaaliya markii la doortay 4 sano ka hor digreetu soo saaray oo leeyahay guryaha dawladda iyo dhulka dawladda lamana gadi karo lamana kireey karo waa yaa xagee ku dambaysa ma iloobe warkayga waxaan ku soo xiraya haddaad been ku timid shalay burafool ku taaliyo bar madow inaad tahay maanta waa ku baranoo berrinaba degayside fahad boqor ha kaa dhigo waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxiim maanta halkan waxaa jooga fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed waa beri waxaan u maleynayaa maanta 78 jir aan u maleynayaa 15 jir ayaan ku bilaabay fanka iyo dhaqanka shacbiga Soomaaliyeed anagoo fanaaniinta qaranka ah maantay waddanka dhibaata ka jirta dalka siyaasadiisii ma garanaysaa ayaa qariban ilaahay ummadda Soomaaliyeed wax qarqab Allah u keeno wax hoggaan wanaagsan Allah u keeno ilaahay wuxuu keenaan raallin ku noqonayna qof wax ka keeni kara ma jiro ummadda Soomaaliyeed hal badbaadiyo ayaan leenahay midda kale waxa iyaga daran waxaan maqlay tiyaatarkii ummadda Soomaaliyeed tiyaatarka fanaaniinta Soomaalida oo dhan baa iska leh waa meesha waa hooyiga dhaqanka waa muraayada dalka waa meesha laga daawado ummaddaanu maxay tahay weeye tiyaatarku
ummaddaanu maxay tahay meesha loo gudbiyo weeye meesha tan dhaqanka soomaaliya loo gudbiyaa waxaa soomaalidu ahayd waxaan ku xumahay anugu dadka khudbadda waxaan ku wanaagsan codadka inaan sameeyo laakiin khudbadaha kuma wanaagsan inaan cod sameeyo oo ku wanaagsan laakiin khudbadda kuma wanaagsan waxaan ka xumahay tiyaatarkii saas ahaa oo mas-uuliyaddiisa ka mid ahay wixii ka mid ahaa dhibaatadiisa mas-uuliyaddiisa aan ka mid ahay in maanta anoon ogeyn annagoo fanaaniinta ogeyn in la iibiyo tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed in ganacsade laga iibiyo ayay maan taaganta ma yeelayno ma yeelayno haddii wax la dhacayo ha la dhaco laakiin tiyaatarka lama dhici karo salaanka bacdi hadda ka hor geed aa ooyi geed aa ooyey waxaa la yidhi geedow maxaa kaa ooysiiyey waxaas yidhi misaareey ima gooy laheene laakiin gabalkaygaa kugu daaban horta dadka la sheegaayo oo inta laga xusoohayo oo magacyadooda ama maqloohayno meeshaan ay noogu yimideen ayagoo jaakaysan barafuumaata dalkana ka saynin dadkiisana ka saynin wuxuu galo iyo wuxuu gudana ka saynin golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalana ka saynin albaab laga galo iyo kan loogu soo baxana kale ka saynin okay imaatinkood kadib marka ma aqbalayno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inay nagu noqdaan cidna kama yeelayno taas horta taas waaye aniga xanxantaan waa maqlaayi golaha murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gedi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqadaa loo saxiixi waa la aqbali waa maqli hal su'aalan weydii marka waxaa idhi masaajidka ma ku jiraa asaaba kowka ayaa la yidhi masaajid ma gadmaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun masaajid ma gadmaa qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas aan dilnayn geedka loo saaro khafta la rabo masaajid ma hotel ka dhisay adi ma dumiyey hotel ma ka dhisay jawaabtaada la soo bax haadhe waa batiri si dad banaa u tiribe qofka yiri intaan iibsahaa meesha masaajidaa ku yaal macal musqulihiis macal khulutaankiis weesi qaadka waa isku iibsay waa dumiyey maano maxaa ka dhisay marka goob dalxiis miya ilaahay khaatimada noo suubiyo iimaankana allah noo sugo garashadana allah noo fiicnayo